safiirra ma joogaan garow iyo hargeysa. hal dowlad baa Soomaaliya leedahay, hal safiir baa Soomaaliya u jooga Ethiopia. safiirkaasna wuxuu joogaa xamar, isaga ayaana Soomaaliya ah diblomaadka ka mas'uulka ah. waxaan u malaynayaa dadku waxay isku khaldayaan safiir iyo qunsul. safaaraduhu waxay kaloo yeelan karaan qunsuliyado oo u jooga magaalooyinka qaarkood. adduunkoo dhan bay ka jirtaa, Soomaaliyana waa ka jirtaa. Soomaaliya nafteeda waxay ku leedahay, hadda anigu Jiddaan joogaa kaala hadlaya, Jidda waxaa jooga qunsuliyad, laakiin safaaradeen waxay joogtaa Riyaad, magaalo madaxda. laakiin mudane safiirro hore iyo wasiirro hore oo uu ka mid yahay wasiirkii adigu aad bedeshay arrimaha dibadda Yuusuf Garaad waxay caddaynayaan in arrintan ay ka duwan tahay sida aad sheegayso oo ay Itoobiya u taqaano saddexda meelood ee Somaliland, Puntland iyo Soomaaliya, saddex waddan oo kala gaar ah. safiirro hore iyo dad horeeto waxay dhahayaan anigu kama jawaabi karo. hadda iyaga dadku way dadku iyaga waxay rabaan ahaa, laakiin anigu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya aan ahay. su-aashaad i weydiisay baan kaaga jawaabayaa iyo xogtaan hayo. tan ugu dambaysay Ethiopia, Soomaaliya hal safiir baa ka jooga, xamar buuna jooga. mudane wasiir, dhanka kale Itoobiya waaxdeeda arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda waxay website-ka ay barta internetka ku leedahay ay ku qortay maap ay soo gelisay oo Soomaaliya ay ku dartay xuduudka Itoobiya marka laga reebo Somaliland. arrintaa inkastoo ay markii dambe ka saartay, ma idinka ayaa kala hadlay mise sida dadka qaar aaminsan yihiin falcelintii bulshada ka dhalatay ayay u arkeen inaanay soconaynin oo idinku hawshiinni waa aad gabteen? iyaguna markay khaladkoodii arkeen, annaguna aan kala hadalnay ayay ka saareen. idinku khariidadda khaldan baa aragteen. khariidadaasoo khaladaad badan ku jiray waxaa ka mid ahaa dalal badan oo sida South Sudan iyo dalal kaleeto dhowr oo Koonfur Afrika jiray ayaa iyagana meesha ka maqnaa. marka khariidad qof isaga falaaday bay ahayd. wax dowlad mowqifkeed buujinaya ma ahayn. dowladda Itoobiya markay aqoonsatay, annaguna aanu ku baraarujinayna way ka saareen, cudurdaar bay ka sameeyeen, baaritaanna way ka sameeyaan maadaama anagu aanu. mudane wasiir, sida aad sheegtay, haddii aad idinku la hadasheen aad hoos ula hadasheen, dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan in aydan si guud oo muuqda oo sida wasaaradda arrimaha dibadda ay ugu dhiiratay inay website-keeda ku soo qorto, aydan idinkuna ugu dhiiran inaad si guud saxaafadda ula hadashaan oo arrinkaa isaga fogeysaan. taa laftoodu miyaanay muujinayn oo aan idinka hooseyn idinku ahayn? hor dadka Soomaaliyeed aad ka hadlaysid ma aqaan kuway yihiin. inta qof aad la hadashay imaad sheegin, tiradooda imaad sheegin. baraha bulshada iyo goobaha lagu wada xidhiidho ayaa hadalkoodu si buuxdhaaf u yaallaa oo ay si badan ugu falanqeeyeen arrintaa. weli meeshaydii baan joogaa. waxaa tiri ummadda Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed waa badan yihiin, 15 milyan waaye. xataa haddii golaha maxaa la yidhahdaa bulshadu ma koobi kara. aduu haddaad tira ii sheegi kartid, annagoo kuu sheegi karaa tirada og in waxaana aysan macno lahayn oo khalad dhacay oo ahaa Soomaaliya kaliya khusaynin. laakiin almuhiim waxa waaye khariidadii hadda meesha kuma jirto, waa laga saaray. dowladda Itoobiya waxay ka samaysay cudurdaar isagoo weliba khalad ahaa. baaritaanna way sameynayaan.